وبركاته. marka hore mahad balaaran waxa iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo runtii naga dhigay dad muslimiin ah oo caafimaad qaba oo maantana fursadan qaaliga ah oo nagu manaystay oo anaga caafimaad ah aan isku nimaanay marka mar walba waxa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala marka xiga waxa mahad iskale dhammaan marti sharafta runtii farxadan maanta nagu soo qayb gashay college-ka aan maanta furayno oo ah baranjiga saddexaad college-ka Maama Amina oo maanta naga soo qayb gasheen dhammaantiin aad u maasantihiin runtii college-ka Maama Amina wuxuu soo maray taariikh aad u dheer waxaa la aasaasay 2019kii markaasi oo uu lahaa magac kale oo la oran jiray Hakaba Institute of Health Science laakiin nasiib daro COVID-19 markuu dhacay ayaa waxay noqotay marka inuu college-kii uu socon waayay because of dhibaatooyinka markaa jiray iyo awaamirtii markaa la soo saaray laakiin again mar labaad dhammaan macallimiintii iyo maamulkii college-ka way soo digeli weysay ama way cuntimo weysay in college-kii sidaa uu istaagnaado maadaama markii uu ahaa Hakaba Institute laba dufca la soo saaray dufco oo ah midwifery iyo dufco ah basic health-ga waxaa noo suurtagashay mar labaad in aan u istaagno college-kii inaan dib u soo celino oo markaasi aan wajiyo cusub iyo nidaam cusub iyo system cusub iyo istaraatiiji cusub aan ku bilownay markaasi magaciisa aan u bixinay Maama Amina College of Health Science markaasi waxaa lagu furay college-ka baranjigiisa ugu horeeyay oo ku yaalo suuq Boocle Madiina kadib waxaa noo soo dhigashay inaan baranji labaad ka furno Afgooy gaar ahaan xaafadda Wanjel maantana waxaan u taaganahay baranjigii saddexaad inaan furno taasina waa mahad Ilaahay sugnaatay oo runtii sidoo kalena aan u mahad celinayno dhammaan macallimiinta college-kii mar walba u taagan in ardayda sida loogu baahnaa ay u gudbiyaan message-koodii oo waajibka saarnaa runtii college-ka markii magacan cusub aan u bixinay new strategic aan ku soo darnay waxaa ka mid ahaa inaan college-ka u sameynay qolkii demonstration room-ka ah oo dhammaystiran baranji walba oo college-ka uu leeyahay wuxuu leeyahay qolkii practical-ka oo gaarka ah oo u dhammaystiran qaybtiisa lab-ka qaybtiisa nutrition-ka qaybtiisa midwifery-ga dhammaan u wada dhammaystiran agabyada u wada yaalaan midda labaad istaraatiijiyada labaad oo aan ku bilaabnay markii labaad waxa waaye in dhammaan macallimiinta college-ka oo ka howlgasho waa dhaqaatiir ka howlgasha isbitaalada ku yaala magaalada taasi marka waxay macno leedahay dhakhtarka haddii uu yahay dhakhtar mar walba ku jiro shaqadiisa duty-giisa caadiga uu ku jiro asigii marka ay fursad u noqotay marka in ardaydii uu casharka bixiyo that means waxa waa ardayga si fiican ugu faa'iideysanayaa oo waa qof dhammaystiran oo practical u dhammaystiran message-ka uu bixinayo ay tahay message dhammaystiran taasina waxay marka istaraatiijiyada labaad oo runtii aan ku guuleysanay midda saddexaad oo aan istaraatiijiyada saddexaad noo ahayd oo markii aan magacaan bedelnay aan ku dhaqaaqnay oo haddeertan aan ku shaqaynayna waxay tahay in ardayda kaliya ma ugu simin practical-ka ay ku qaataan qolka demonstration room-ka bal ardayda markay dhameeyaan semesterka koowaad ama ay dhameeyaan basic health-ga first aid-ka oo kale markay dhameeyaan waxaan si labaad fursad u siinay in ardayda aan geyno goobaha caafimaadka isbitaalada MCH-yada IDBs-ka inaan halkaas geyno weliba anagoo by free ku geynayno ardayga marka muxuu isku helay theory plus 2 practical oo isku helay taasoo ah oo anaga aan marka aan ugu magac darnay itusi itaabsi marka istaraatiijiyadaasna waa ku guuleysanay maantana marka waxaan u taaganahay baranjigii saddexaad inaan furno waxaan rajaynaynaa marka insha Allah baranjigaana inuu noqdo baranjadii guuleystay sida labada baranji la soo dhaafay oo kale u guuleysteen inuu baranjigaana u guuleysto kadibna aan baranjiyo afraad shanaad magaalada dhan aan ka wada furno insha Allah aad iyo aad u maasantihiin dhammaan waxaan u hambaleynaa marka ardayda oo college-ka dhigato wilina maxallaha diiwaangelintiina way socotaa ardayda oo dhammaanna kuley way u wada furan yihiin inay yimaadaan marka aad iyo aad u maasantihiin mar labaad mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh